hargeysa iyo soo nimanka isaaqa oo de maanta meeliyaha cabaad saawa cabaadaya oo aan gartooda iyo meel cid ay wax la leeyihiin iyo cid ay wax ku leeyihiin toona aan garanayn waxaynu ognahay in farmaajo iyo ina biixi Itoobiya ku kulmeen xafiiska prime ministerka oo saacad ay u xidhnaa qolkaasi oo ay ku wada hadleen dhowr casho ka hor waxaan idin sheegay waan su'aalo weydiiyay farmaajo waxaan weydiiyay ciro waxaan weydiiyay ina biixi labadii kaleba waa ka jawaabeen alaanka ina biixi kama jawaabin waayahay waxaynu ognahay marka ugu horeysa in hadaynu saaqnahay aan isweydiinay farmaajo ma isaga inoo yimi isaga naga doonanay bal su'aasha ka soo jawaaba farmaajo ma isaga inoo yimi isaga naga doonanay wuxuu wasiirka arrimaha dibadda ee ina biixi inoo cadeeyay inuu 6 la hadlay 12 kiilo yimi oo ina biixi isagu soo doontay farmaajo waayahay farmaajo iyo ina biixi waxay ku wada hadleen boo farmaajo ka dhawaajiyay ina biixi uu ka amso waayo hadii uu wax khayr qaba wa ay soo sheegeen oo shacab oo farxad leh shacabkiisu la wadaagi lahaa taas waa taasoo ina biixi wixii ay farmaajoysan shacabkiisa lama wadaagin marka wada khalad intaynu maro yaynaan ummad iskaga gardaroone ninkii aad doorateen ee meesha aad madaxweynaha uga dhigateen weydiiya waxa isaga iyo farmaajoysan farmaajo wixii ay ina biixi siraadeen buu yiri cirrana wuxuu inoo sheegay wixii ay ina biixi siraadeen ina biixi qolbu isku soo xidhay sheegi maayo waayo hadii ay wax wanaagsan yihiin shacabkiisu la wadaagi loo farxad yihiin ma garanaysa danihiisa uu kala soo hadlay dantiisa gaarka marka waxba yaynaan ummadda shacabka jaahabaabin taas waa ta labaad farmaajo horumarinta gobolada 7 milyan buu siiyay gobolka saaxil ee berbera wuxuu ugu magac daray injineer Yiriso shacabka tumaysan shacabka ninka de Yiriso waxa la leeyahay inuu geystay ma jiro laakiin se farmaajo ugu magac daray marka isaaqow wixiinu sheekadiinu waxa weeye baqtiga ma cuno ee fuudkiisa alcaba Soomaali doonayna waxeedana waanu guranaynaa bal ina biixi uu su'aal weydiiyo waxa tiraahdaa war farmaajo maxay istiraadeen inta farmaajo ku cararaysa farmaajo aniga wax igaga xun ninkii goolwade ee yiri bagaa loo laayay ninkaasay ahayd inaa la hadashaan oo ama maxkamad soo taagtaan ama ka sheekaystaan taas waa ta labaad anigu haddaan haysa caruurtii ku kacday ee dagaalamay SRMta iska sheeganaysaan iyo beentan ay dadka u sheeganaysaan iyo taariikhan beenta sheeganaysaan nimankiina dagaalada suqay ku soo baxayo joojiye way lisognaay halkan aanu fadhinaa dad shacab oo dambe oo been loo sheegaya wallahi ma jirto ma garanaysaa horaan idinku sheegay 12 jir yaaniga la igu xidhay anjeel ku gal taasi waa ta labaad dagaal aanan ku soo jirin hawd ilaa meel aanan ka gelin ma jirto kuwii siyaad kubadda u ciyaaraya sheeganaya qararac iyo durbaan warbeenta ka day SNM taariikhdeedii waa la aasay hargeysana aastay oo niman meel allaale meel ka yimaadeen oo siyaad la shaqeynayay yaa imika doonaya taariikhdayadii inay sheegtaan joojiya oo beenta dadka day taas waa ta labaad horaan idinku sheego wax doorasho oo aad sugtaan ama aad ku seexataan ama aad ku soo toostaan yaana jirin taasina waa qodob wax 18 May la ilaalada dabaaldetaan yaana jirin waayo waxa basalka waxay ku hayaan civil war weeye hadii imka 18 May loo dabaaldego taasina waa ta saddexaad waxaynu ognahay hadday tahay meediyahi nimankii suxufiyiinta madaxa banaana hadday tahay macallimiin hadday tahay abwaano oo kii ugu dambeeyay inankii yaraa ee timacade codka timacade aanu ka urinaynay waka inta shindadiisii qaatay jitay gurigiisii iyo ubadkiisii iyo shaqadiisii iyo halkii hooyadii iyo aabihii ku dhaleen ayuu ka haajiray siyaadna mu arag uu ka qaxay warqad laga qoray oo iskaga dhaqaaqay war maxaad ugu sheegi weydeen ina biixi runta dadka baabiinaya
inta farmaajo iyo oo la silcaya ummad Soomaaliyeed oo ku qoomiyadooda oo kun balaaye iyo baas ku jireen inta aad ka sheekaynaysaan ninkan aad doorateen ee meesha aad dhigateen iyo afartan xaaraan ee la shaqaynaya maxaa runta ugu sheegi weydeen ee shacabkoodii caburiyay ee habeen walba guriyaha ugu dhacaya waryaada war ilaahay inta ka yaabtaan beenta iska daayay waxaan kale oo idin sheegayaa nin siyaasiya ninka maqlow hoog iyo ba'baad